soo dhawaada saaxiibayaal. Haddii aad halkan ku cusub tahay, aad baan ku soo dhaweynayaa weliba gacmo furan. Haddii aad tahay saaxiib nala joogay, waad ku mahadsantahay la joogaaga. Saaxiibka nagu cusub, waxaan ka codsanayaa walaal nagu caawi subscribe-ka, maxaa yeelay waxaan saarannahay wadadii 30,000 ka mid noqo walaalahana gaarsiinaya ee nagu riixaya dhanka ay dhinaca 30,000. La garay muuqaalka si uu u gaaro dad badan kuguna daydaan saaxiibada kale. King Salver Pro. King Salver Pro. King Salver Pro. King Salver. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وحنا كينغ سولفر واحد يقدر ونسان كينغ سولفر برو. King Salver Pro. وهي أصحابتي دقاليقة اسكو سو نقشون أكسن. calaamada lana oo waqti la qaadanayso ninkeeda waad sidoo kale gabadheeda rajaa ka hor intaasan iskuulka aadin waxay samaynaysaa aliminto ilaa ay ku tegayso biyaha kadib waxay soo aadaysaa iskuulka maalinta iskuulka waxay ku lahayd imtixaan ay ardayda ay ka qaadayso waxaa aad ay ula yaabaysaa wiil ka mid ah ardayda lagu magacaabo Penny oo waxba aan samaynayn kadib macalimiintii waxay soo kaxaynaysaa gabadheeda maadaama iskuulka waqti soo dhamaaday raja waxay hooyadeed u sheegaysaa in saaka iskuulka uu caajis ahaa kadib waxay salam filan macalimiintu ku arkaysaa Penny oo eegaysa ka xiisanaya waxaa barashada bixinaya mid ka mid ah ardaydeeda maadaama uu cashar socday waxay arkaysaa laba gabdhood oo telefoon ku ciyaaraya macalimiintu way u digaysaa balse ma dhageysanayaan ugu dambeyn labada gabdhood gabar ka mid ah ayaa soo istaagaysa waxayna galaaska dhexdiisa ku aflagaadeynaysaa macalimiinta ayaa aad uga caroonaysa galaaska ayayna ka saaraysaa macalimiinta oo waqti ku qaadanaysa qolka nasashada ayaa waxay daaqada ka arkaysaa Penny oo inqaabaya gabadhii ku caynaysa galaaska gabi ahaanba wuxuu ka daadanayaa buugta baskilkeena oo ka jibinaya macalimiinta lana oo waqti badan gelinaysa inay wax badan ka ogaato wiilkan ayaa macalimiinta kale la shargarinaysa weydiinaysa bal inta wiilkan ay ka yaqaaniin balse waxaa loo sheegayaa inuu qof caadi yahay macalimiintu aad u yaaban ayaa waxay raadinaysaa wiilka si ay waqti ula qaadato macalimiinta markay keento wiilka qole cidla ah waxay weydiinaysaa su'aalo waxay leedahay waxaan idinka qaaday imtixaankii isagaa ka mada shaqayn waxaad dhibaataysay gabar maxaa intaas dhan u samaynaysaa waxaan u walwalaya aniga adiga mustaqbalkaaga ay leedahay wuxuu yidhi aniga mustaqbalkayga waa caadi macalin gabadhana waxaan u xayeeleeyey waan u dhibaateeyey maadaama adigu ay galaaska kuugu dhibaataysay kadib Penny waa uu iska qoslayaa macalimiinta ayaa waxay leedahay taa wax macquula maahan mustaqbalkaaga ilaali hadda aniga waan sii tegayaa waxaan leeyahay shir muhiim ah markii kugu horeysan kulankan kula qaadanayo maxaa yeelay waxaad samaysay wax aan hore loo samayn fadlan mustaqbalkaaga la yeelahay subaxii xigay macalimiintu wax maskaxda dhan tagay wiilkii Penny ahaa ee ardaygeedii ahaa waxay ka fikiraysaa isaga galaaska markay timid waxay si lama filaan ku arkaysaa boorsadiisa way soo qaadaysaa waxay soo bixinaysaa mid ka mid ah fanaanadiisa wayna carafsanaysaa waxay shanqar ka maqlaysaa dhanka albaabka waxaana dareemaysaa in qof daawanayay waxay soo aadaysaa dhanka fardhaqashada ama gacmo dhaqashada balse waxaaba la jooga ninkii ardaygeeda ah Penny ayaa si geesinimo leh gacanta qoorta ugu soo qabanay macalimiintiisii balse waxay u sheegaysaa inuu wax qaldan mar kale samaynayo waxay leedahay ma jirto waddo aad aniga igu soo dhawaan karto maxaa yeelay waxaanahay macalimiintaada aniga lama samayn karo xiriir ardaygeeda fadlan iga fogow waxaad ku ciyaaraysaa cunug yahow dab ayaad ku ciyaaraysaa ayay leedahay canaan kadib way ka tegaysaa isagoo halkiisa taagan Penny ayaa macalimiinta ka codsanaya inuu doonayo inuu la kulmo ama ay kulan wada qaataan kadib iskuulka balse lana waxay u sheegaysaa in totaliba aysan kulmi karin ay kaliya isku ixtiraamaan macalimad iyo ardaygiisa waxay soo aadaysaa dhanka baawarka balse waxba ka jaban saydhmeeraagii waxay soo kaxaynaysaa gabadheeda waxay soo aadaysaa dhanka iyo gurigeeda ninkeeda wax weydiinaya waa maxay sababta ku kaliftay inaad gabadha soo lugaysiiso balse waxay sheegaysaa in gaarigeedii uu shalgalay waqti iyo nasiino kadib sida caadada ahayd subaxii xigay waxay soo aadaysaa shaqadeedii oo iskuulka imaanaysaa galaaska cashar iyo wax iswadaarsa kadib waxay leedahay yaa su'aal qaba Penny ayaa su'aal weydiinaya wuxuu leeyahay ma laga yaabaa in ardaydu ay shaqo helaan iyaga oo aan iskuulka dhammayn laakiin waxaan maqlay maamulaha in adigaba shaqadu kaa ciiri raba inaan su-aashan ku weydiiyey maha sorry ayuu leeyahay waxaa ku qoslaya ardayda oo dhan macalimiinta oo aad u caroonaysa ayaa waxay leedahay galaaska iga bax mise aniga ayaa kaa bixinaya wuu ku adkaysan inuu fadhiyo baaga ayay banaanka ugu turaysaa waxay macalimiinta u sheegaysaa inuu banaanku baxo balse waxaa markiiba ardaydu kusoo tuurayaan
tirtirihii waxayna si cara leh uga baxaysaa bannaanka. Guriga ayay iska imaanaysaa. Telefoonkeeda ayaa la soo wacayaa balse qof la hadlaya ma jiro. Subaxdii xigtay waxay soo aadaysaa kalaaska balse waxay arkaysaa Penny fadhiya way caroonaysaa. Waxay u imaanaysaa maamulihii waxay leedahay waxaan doonayaa fasax maxaa yeelay waxaan xanuunsanayaa. Waxay imaanaysaa gurigeeda waxaa weydiinaya ninkeedii maxaa dhacay buu leeyahay. Waxay leedahay xoogaa waa iska cajisanahay kalaaska waan joogi waayey. Kadib waxay macsalaameynaysaa gabadheedii iskuulka ay keenaysaa. Waxay imaanaysaa meel bannaan ah si ay waqti uga qaadato kaligeed balse waxay soo aadaysaa madaxafka si ay meelaha u daawato. bal waxay si kadisa ku arkaysaa Penny way ka soo cararaysaa. Waxay soo aadaysaa dhanka iyo liftiga balse liftiga si lama filan ah isugu imaanayaan. Penny wuxuu u sheegayaa inuu aad uga xiistay una doonay inay timaado iskuulka balse markaan macalimiintii ayaa weerar ah ma xakameyn karto nafteeda balse waxay nafteeda u sheegaysaa inay tahay maamo xaas ah isla markaana aysan jeclaan karin iyadoo ardaygeeda hay wajahaysaa qarow iyo inay habeen walba ku riyoto ardaygeeda yaraa. Kadib subaxii xigay almido kadib waxay soo aadaysaa iskuulka si ay u soo xaddo warqadda imtixaanka isla markaana ay jaabka u geliso si uu eedeysan u noqdo iskuulkan looga ceeriyo. Kadib waxay soo galaysaa qolka nasashada si ay kor ugala socoto waxa lagu sameynaya wiilka yaraa. Kadib waxaa la baxaya security iskuulka sidaana macalimiin ayaa waxay ugu guuleysanaysaa in wiilkii laga ceeriyo guud ahaanba iskuulka balse wiilka yaraa maskaxdeedu ayuu degay oo waxay weli si mala awaal ah ula farac ciyaaraysaa wiilka yaraa. Waxay supermarketka u soo wadaysaa iyada gabadheeda si ay shopping u wada sameeyaan gabadheeda wiil saaxiibkeeda oo isku da'yihiin balse waxay si lama filaan ah ku weynaysaa iyada gabadheeda 45 daqiiqo oo raadin ah. Kadib waxay macalimiintu go'aansanaysaa in ay warka gaarsiiso dadka halka lahaa. Waxaa la soo aadaya dhankaas si kaamirada waxay si lama filaan ku arkaysaa wiilka yaraa oo iyada markaa soo dabagalay. Waxaa soo dhacay telefoon waxaa loo sheegay gabadheedii inay wanaagsan tahay joogtana markaa iyada hay guriga. Waxay soo aadaysaa gurigeeda casho kadib way saxanaysaa se waxay wajahaysaa qarow qofba bannaanka ugu wacaya. Waxay soo baxaysaa qof ma joogo way soo laabanaysaa guriga. Markay soo gasho waxay la kulmaysaa wiilkii laakiin waa meel awaal oo iyada maskaxdeeda waxa u imaanaya ninkeeda oo la yaaban balse waa uu dejinaya. Kadib waxay go'aan ku gaaraysaa inay soo aado wiilka yaraa gurigiisa oo aysan dhawaan arkin. Bannaanka ay ku sugaysaa muddo kadib waa uu soo baxaya isagoo mooto wata. Waxay go'aansanaysaa inay disho baabuurka ay asaga iyo mootadiisiba kormarinaysaa. Halkaas ayuuna ku dhimanayaa wiilka yaraa. Dacwade sidee baad u aragtaa dhamaadka filinkan? Maxay kula tahay macalimiintan wiilka jeclaatay haddana iyada dishay? Haddii aad fadlan halkan soo gaartay waxaan ku leeyahay walaal soo dhawow mar kale. Waan kaaga mahadcelinayaa daawashada aad daawatay muuqaalkan ama filinkan. Haddii aad filinkan ka heshay wax uun kaaga baxayn waxaan kaa codsanay walaal subscribe gare channelka oo ka mid noqo walaalahana gaarsiinaya 30,000. Thank you so much. Like gare, subscribe gare, comment gare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.